السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada darsigeeni maanta waxaan halkaan uga hadlaynaa wax loo yaqaano functionska. sidaad ogtihiinba functions horay waan soo isticmaalnay sida waxaan soo isticmaalnay print function ayaan horay soo isticmaalnay sidoo kale waxaan soo isticmaalnay input function ayaan horay soo isticmaalnay kuwan waxaa loo yaqaanaa inbuilt functions markii la joogo Python programming language. function walba wuxuu qabanayaa shaqo gaar ah ayuu qabanayaa. function walba oo kamid ah functionskan waxaa looga talagalay inay qabtaan shaqo gaar ah. maantaydan halkaan fiidihan waxaan ugu talagalnay inaan uga hadalno functions kaliya. marka functions la dhahayo tusaale markaan rabno inaan abuurno project weyn oo culeyskiisa leh, haddaan rabno inaan abuurno ama aan sameyno sida hadda applications jiro sida waxawaaye Amazon ama kuwa online-ka iyo kuwo kala jiro ama yani loo isticmaalo application oo aad featureskooda u badan yahay. applicationadas ama markii la isticmaalayo features badan ay leeyihiin, in badan marka waxay u baahan yihiin markii la sameynayo waxyaabooyin badan, shaqooyin badan in la qabto. sidaas daraadeeda markaa sameynayno project oo culeyskiisa leh waxaa qasab ah programkeena ama code-ka aan qorayno inaan u qiimino lines inaan u qiimino. marka functionska marka programkaas culeyskiisa leh aan abuurayno waxaa qasab ah programkaas inaan u qiimino lines inaan u qiimino ayaa qasab noqonayso. kuwaas oo hodhowdi hadaa u baahno dib aan u isticmaali karno. kuwaas marka waxaa lagu magacaabaa functions ayaa lagu magacaabaa. kuwa waxa waaye inbuilt functionska waan fahnay sida inputka iyo print iyo wixii lamid ah waxa waaye waa inbuilt function. ma abuuran karnaa function anaga noo gaar ah? waan abuuran karnaa. waxaan abuuraynaa program yar oo salaam ku saabsan ayaan abuuraynaa oo sida la isku salaamo ayaan abuuraynaa. marka waxaynu leenahay marka ugu horeyso waxaan qeexaynaa salaanta ayaan qeexaynaa. waxaynu leenahay def waxaa loola jeedaa waa defining ayaa loo jeeda, qeexid waaye soo gaabiyey. defining ayaa lagu soo gaabiyey, def ayaa loo soo gaabiyey. wanaagsan underscore ayaad isticmaalaysaa haddii la xirto wiil wanaagsan. marka waxaynu leenahay waa xiraynaa. marka mar walba oo aragto colon line ama line colon ku dhamaanay haddaa aragto markii koor la qeexayo waxaa inta badan colonkaas ayaa la isticmaalaa. marka waxaynu leenahay print waxaan soo print garaynaynaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum ayaanu leenahay. then waxaanu leenahay print kusoo dhow. then waxaanu leenahay hoos ayaanu soo degaynaa. marka wax walbo oo halkaan lagu qoro kuwan ayay ku xisaaban yihiin. waxay ku xisaaban yihiin functionkan kore ayay ku xisaaban yihiin. wax walbo halkaan lagu qoro labadan line hadda waxay ku xisaabsan yihiin halkaan ayay ku xisaabsan yihiin. functionkan ayay ku xisaabsan yihiin. marka hoos aan soo degno marka functionkan waxaanu leenahay soo daawac print maxaa la soo daawacayaa. marka labaad waxaan u yeeraynaa wiil wanaagsan ayaan u yeeraynaa. maxaynu leenahay ilaan haddaanan wiil wanaagsan aanan u yeerin labadan line arki mayno, noo soo daawaci mayo. waxaan dhahnay print ayaan dhahnay sababtoo ah waxay ku xisaabsan yihiin functionkan oo wiil wanaagsan la dhahayo ayay ku xisaabsan yihiin. haddii wiil wanaagsan aanan u yeerin kuwaan arki mayno, labadan line la arki ma aan probayn hataa aan fiirino. marka waxaynu leenahay print waxaan leenahay marka waa xalay. marka aan soo print garayno waxaynu leenahay run ayaanu leenahay. waa ujeedaa halkaan waxaa kaaga soo muuqda, meeshan waxaa kaaga soo muuqda Ahmed iyo wacalaykum salaam bis ayaa soo muuqda. labadan line xagee aadeen waxaynu rabnaa labadan line aan soo saarno. waxaa see ku soo saari karnaa waan u yeeraynaa
waxaynu leenahay wheel underscore wanaagsan. wheel wanaagsan halkaan imaa. marka hadda haddaan print soo dhahno inay soo baxaan aragna. marka waa ujeedaa Axmed assalaamu calaykum kusoo dhawow guriga. وعليكم السلام. markaan soo daawacno print marka ujeeda Axmed assalaamu calaykum وعليكم السلام kusoo dhawow guriga. marka functionkan kan labadan line waxay soo baxayaan kaliya marka aan u yeerno wheel wanaagsan ayay soo baxayaan. haddii aanan u yeerin wheel wanaagsan labadan line la soo daabici maayo. marka ugu horeyso markaan function abuurayno marka ugu horeyso waa inaan qeexnaa functionka wuxuu yahay. hadda tusaale ahaan haddaan hoos soo degno hadeertaan halkan haddaan imaano halkan haddaan qorno wheel wanaagsan halkan haddaan qorno waxa waaye Python programming language ma fahmayo waxa loola jeedo wheel wanaagsan. ilaa ma adi ku qeexdo wheel wanaagsan waxa loola jeedo Python ma fahmayo. sidaas darteed waa marka ugu horeyso waxaan qeexaynaa functionka ayaan qeexaynaa kadib waan u yeeraynaa. marka casharkan wuxuu ku saabsan yahay muhiimadiisa inaan abuurno function anaga noo gaara. hadda maalmihii lasoo dhaafay waxaan isticmaalaynay function oo inbuilt functions ah oo Python programming language kale ayaan isticmaalaynay. laakiin maanta halkan waxaan fahmi karnaa function walba inaan abuuri karno anagoo isticmaalayno def ama defining anagoo isticmaalayno inaan abuuri karno function walba anaga u baahno. marka ugu horeyso functionkan qeexina. marka labaad inta code ah rabto ayaad qoraysaa. marka saddexaad functionka ayaad u yeeraysaa. marka sidaas waa darsigeena maanta intaas ay ku saabsanaay. marka waxaan filayaa in si fiican loo fahmay insha Allah taala. haddaa channelkeena aad ku cusub tahay subscribe, like, saaxiibkaagana la wadaag. wixii talo ah waxaad inoogu soo gudbin kartaan commentiga. aad u mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.